إن فيلم كان ما قصة عدا horta Ismaaciil aad ma santahay waa markii labaad aan Soomaali ka wali maanahay isla markaana film aan director kan kaga hadlayo filimka qiimaha dumarka runtii waa film ka hadlay xaaladda jirta ka hadlay xaaladda dhalinyarada loona baahan yahay dabcan in wacyigelin fara badan dhalinyarada looga sameeyo filimka qiimaha dumarka waa qiso dhab ah oo dhacday mar walba tan dhacdo oo hal mar oo kaliya aan dhicin maadaama inta badan arrimaha qodbisirada ee ka dhacaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaarkoodna ay sameeyaan qaladaad badan ee ka imaato arrimahaasi marka waa qisada oo dhacday isla markaana bulshada inaan ka wacyigeliyo aan go'aansan saas daraaduna filimka qiimaha dumarka uu ku yimaaday waa gartay filimka inta badan waxaa ka soo muuqanaya dad maaragtay dhalinyaro ah isla markaana iyaga uu qoseeyayo maaragtay filimkan Faisalow goorma kugu soo dhacay inaad maaragtay aad samaysid horta filimkan wuxuu ugu soo dhacay mar baa jirtay dhalinyarada la Soomaan soo dhalinyarada ayaga iska war ogma rabeeto markii odayaasha laga soo tago dhalinyarada dadka inta badan sheekaysto iska war haya waaye arrimahan waa arrimo jiro mar rabeeto in wiil gabar oo qodbisareysto muddo markuu qabo kadib uu iska furaya qaarkood uur ay ku soo baxaan waxyaabo mar rabeeto dhacdo waaye marka habeenay wax ku fikiray bal hadii bulshada asaafilimaakar ahaan aad ugu wacyigelisid arintan oo ay waana badan ay ku qaataan dhalinyarada badan oo arrimahan ku dhaqaaqo balse waragta waa fikiray waxa ii soo baxday inaan sameeyo film ka hadlaya qiimaha ay leeyihiin dumarka waayo wiil walba marka weydiisad wuxuu ku dhahaa in gabadh walaashiida xumaan murab in gabadh qof walba walaash uu jecel yahay laakiin bal hadii aan dhaho arintan qof walba maadaama walaash uu jecel yahay sidoo walaash ugu damqanayo hadii uu ugu damqado gabdhaha kaleeto soo gabdhahana way wadana kulli waxa waaye caafimaad lagu wada joog lahay nabad lagu wada joog lahay dhibaatana ma aysan dhacdeen saas daraad waxaan yeestay bal inaan dhibaatada uu dareemayo wiilkan hadii walaash la waxyeeleeyo in uu dareemo gabar kale intuu xumay lahay marka wadada ugu wanaagsan waxay noqotay inaan filimkan sameeyo qiimaha dumarka waa gartay bal filimkan